Cudurkan COVID-19 waxaa markiisii u horreysay lagu arkay dalka China dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay 2019 xilligaasi oo uu soo ritay dad aad u fara badan oo China ah. Dowladda China ayaa qaaday olole xooggan oo cudurkani kula dagaalamaysa iyada oo dhistay cisbitaallo waaweyn si gooni ah loogu xanaaneeyo bukaanada cudurkani ku dhacay. Dowladda China ayaa kala dirtay madaxda sare ee hay'adda caafimaadka dalka China taasi oo lagu eedeeyay mas'uuliyad darrada faafitaanka cudurkan oo ay wax badan ka qaban weyday. Shaqadii loo idmaday oo ahayd daryeelka caafimaadka bulshada dadweynaha ku nool China. Dowladda China ayaa garoosatay sida lama filaanka ah ee cudurkan COVID-19 uga baxay faraha uuna ku baahay gobollo cusub oo dalkaasi ku yaala waxaana ay soo rogtay xanibaadyo gaadiidka cirka dhulka iyo badda. Dowladda China ayaa ugu dambeyntii miciin baday bandow lagu soo rogay magaalada Wuhan iyo dhammaan gobollada laga helay caabuqa coronavirus. Dowladda China ayaa dadaal xooggan waxa u gashay xakinta faafitaanka cudurkan coronavirus iyo dadweynaha bukaanadan cudurkan la ildaran waxa ayna qaaday weerar ka dhan ah bakteeriyada iyadoo ciidanka xoogga dalka China lagu amray inay hubka u qaataan cudurka COVID-19 waxaana la howlgeliyay boqolaal kun oo ciidan ah iyo tabaneeyo kun mutadawiciin magaalooyinka iyo wadooyinka guryaha ku buufinaya haraadiga jeermiska dhex ceegaagaya hawada. Dowladda China ayaa ku guuleysatay ka takhalusay faafidda cudurka coronavirus